ورحمة الله تعالى وبركاته هداد شري داونيسي ملاح oo dawladda federaalka ku dhaliilaya in aadan yabaal iyo masaajidka cali guduud iyo nuur dugle oo dawladda federaalka dagaalka al-shabaab ay ku fashilantay dibna loogala wareegay dawladda federaalka deegaanadaas oo gacanta al-shabaab ay dib u galeen ogow dagaalkii daacish ee intaas wiil ku dhimatay ee rag qarka tafayeen oo daabka loo fureeyay deegaanadii 2 sano ka hor la xoreeyay ka bilow miiraale toga jacayl ilaa baalada dusheeda maanta iyo shalay waxaa dib u qabsaday oo isku kala bixiyay argixisada daacish waa ku dul istaagaya fashilkaas dadka garowe dega waa ka dhamaaday dulqaadkii haddaysan dawladda Puntland 24 saacadood Israa'iil gelin uga bixin falkii guracnaa ee barxadda ka dhacay argagixisada isaaq argagixisada Soomaali diidka ah kuwii falkaas qaybta ka ah ee garowe ku sugan baa u maqan waxaan dul istaagayaa bah dhunkasho ما bah ma jeertan nimankaas waa tolkay laakiin kuwan bah dhunkasho waa ku dul istaagaya waxaan kale fariinteedu adag aan u direeyaa ee ugu dambeeya dhulbaantaha hindida ah ee suuqa laga qortay ee baarlamaanka Puntland ku jira ee barqamaalka ah qodobadaas oo dhan intaan ku dul istaagin xaaladda guud ee Puntland iyo waqooyi bari Soomaaliya qodobka ugu horeeya culimadii Puntland iyo culimada Soomaaliyeed ka gaaraya Sheikh Umar waa idin fadwooday dawladda federaalka Xasan Sheikh iyo Xamse Jaanis baa maanta soo doontay Sheikh Umar waa idin fadwooday inaa wadankan qof iyo cod gaarsiisaan wixii idin hor istaagay inaad afka ka garaacdaan ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed qaata fariinta Sheikh Umar qaata culimada Soomaaliyeed fariintooda intaad qof iyo cod difaaci kartaan oo mucaaradka garaaci kartaan oo ilkaa ka ridi kartaan maanta way hadleen waxay lahaayeen u fiirso saraakiil baan dacweynaynaa saraakiil baan caalamka u gudbinayna caalamka soo kan isagoo u jeeda madaxweynaha Venezuela la soo qabtay Soomaaliya caalamka kan Iran iyo caalamka soo kan burcadbeeda iyo maraakiibta iyo marinka Hormuz maraakiibta ku afduubanaya maamiya caalamku maxasan Sheikh dawladdiisa buu ka adeegaya caalamku iyo beesha caalamku kuwa kaliya ka adeegta xaabaha wiye iyo xaabada caalamka waxa leeyahay afka la idinka garaacaya cid wax idin weydiinaysan ma jirto hadaa guriyana ka soo baxdaan macallimaadi baan diliga Soomaali ah oo la sheekaysan karo shaqaale u adeegayo oo Soomaali ah inay magaalada Muqdisho iyo deegaanada kale ee Soomaaliya ay ku geyso duulimaadii international oo waaweyn baa bilaabanay uma jeedaan xaabaha wiye iyo xaabada arod barwaaqada shacabka Soomaaliya u soo kordhaysa ma idin dhigi jiray 100,000 oo ciidan oo Soomaaliya la tababaraya 120,000 bay maraya wiil kasta oo Soomaaliya oo muuqaalka daawanaya qoro ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed xalay iyo habeen hore hubkii ugu badnaa magaalada Muqdisho ka degay hub kale oo ka badanna waa degaya in la tayeeyo ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed mishaarkii waa loo kordhiyay $300 baa looga dhigay askari kasta oo muuqaalka daawanaya waxa leeyahay amar waxaad u haysataa xaabaha wiye iyo xaabada arood waa al-shabaab waa qawaarij iyo xaabada caalamka ina isku si ula dagaalanto dalkan Soomaali baa iskale Soomaali baana masiirkiisa u tashanaysa xaabada caalamka wax laga weydiinay xaabaha wiya waxba laga weydiinay xaabada imaaraadka yahuuda wax laga weydiinay xaabada arood baan waxba laga weydiinay xaabaha wiya waxba laga weydiinay qof siyaasi oo fashilmay oo shalay la soo tijaabiyay ilaahay baa xilli idin dhiibay sida Xasan Sheikh Maxamuud oo kale Xasan Bashalay ilaahay baa dooray markale idinku celiyay idinkoo dhan oo taagtaagan bid ka soo dhax saaray wajinuuda ilaahay baa la shaqeynayay ilaahay baa watay ilaahay baa dib ansixiyo uu rabay ku amooday inuu attention ka rabo farmaajo nin aqli badan buu si isaga aan loo dhihin adiga baasaboor ajnabi haysta ayaa sharciga ku dhaqaysa buu baasaboorkiisa Mareykanka u celiyay dastuurkan hadda la leeyahay Xasan baa ansixiyay nin baa intuu bigaaraystay farmaajo la dhaho busla salaxo ilaahay baa ka qabtay dhakab Xasan Sheikh Maxamuud u dhiibay marka kuwan hawiyahan victimka xoqanaya afka laga garaacay si cad baan u sheegaya waa ka garaacaya cid wax idin reebanaysa ma jirto hooyo dambe idin dhimanaysa ma jirto wiil Soomaali idin dhimanayaan jirin cid wax idin ku darsanaysan jirin afka intaas la idinka garaacaya qodobkii halkaas ka gudbaya waa daawanaysa culimadii Puntland oo aad uga hortimi wixii barxadda ka dhacay qodobada kale dul istaagay barxadda waa ku celinaya caasimadu waa garowe waa caasimada yaa la kala sheegan labada reer ee Soomaaliya ugu ayaan ka daran waa reerkan Ciise Maxamuud kale iyo reerka Abgaal kale waa labada reer ee Soomaaliya ugu dunka wanaagsan oo ugu dulqaadka badanba wax walba lagu sameeynaya waa la caayaya waa laakiin labada reer mid bas ka gorgortameen tamam Soomaalinimada labada reer lagama maro waa ku celinaya barxadda lama iimaan kartid calan Soomaali diid calan argagixiso
علن كاس لما إيمان كرتد برحد ممنوع وكيا حد إن غيرك يساع للراس عدنا وحكوا عدينا محايل جي علنك ولا بد نقال ولا بد دجان وعنسن وجرو إيل محل بد جي أو بوساس ودي هذا إسلام تسكرية ده محد جيسنيس يلا واحد لا ده لو ما قادن كر بوساس علنك السومالي ديد علنك على الشباب لو ما قادن كر يلا waxaa la qaadan karaa bedelkeeda calanka Puntland iyo calanka Soomaaliyeed waxa marka garow Puntland maaha boosaaso iyo garoonka shahaadada soo looma diidin way garow lagu ogolaaday reerkan isa xul dhaha loo socdaa waxishoodeen haddaysan dawladda Puntland raali gelin ka bixin Ciise Maxamuud Jirri waa leeyahay iyaal suuqiina waa leeyahay ciidanna waa leeyahay maalin kasta aan ku hayno ma soo gali kartaan magaalada ciidanka duufaan qoryaha dhiga xeradiina jooga ma soo bixi kartaan wariyaa ciidankiina danab xeradina ka soo bixinina baan maalin kasta ku hayna si aan dadku u kala tagin ninkan waa u jeednaa inuu doorasho caadi ku soo bixin waa u jeednaa inuu dadka boobay maxaan ugu dulqaadanaa waa idinka dartiisaan oo caasimada degantiin caasimad marka dhakada iga xaaraysa war samirkii dadkani waa ka dhamaaday dulqaadkana waa ka dhamaaday hadduusan raali gelin ka bixin wiilasha muuqaalka daawanaya amar waxay u haystaan kuwii waxa ka soo shaqeeyay oo waqooyi galbeed ka yimi inay garow dhexda afka kaga garaacaan Saciid Cabdullaahi Dani baa futa weyn leh futadiisa dhex gala haydan qaado meeshaad ku baxsan lahaydeen oo ku badbaadi lahaydeen argagixisay yahay bal hal arko wixii halka ka dhashay mas'uuliyadda daasna ana qaadaya wiilasha gobolka Nugaalna soo dawladnimadii lama diidin soo lama ciyaar suuqayn fasax baatiin maanta kadib waxa wasi kartaan waxa dili kartaan dila waxa layn kartaan laaya argagixisada iska celiya deegaankiina difaacda dhulkiina difaacda sharafkaaga difaaco qiyamkaaga difaaco ninna u daba fariisan waxa boosaas laga diiday ba garow laga ogolaanaya ma laba Puntland baa jirta hadday dawladnimadii sharmuutan noqotay anigu fitaxaar lixaaj baan ka ah mana sharmuutaysto mana dhilaysto dhaqan xumana laylama imaan karo deegaankaasna laguma xadgudbi karo si cad baan kugu sheegayaa arrinkaas dawladda haddaysan isku sheegaan raali gelin ka bixin walow dadka garow jeeyo ee sixran ay dawladdu yaqaanaan si anigu aan dawladdu aqoon anu aqaano jamhad bahdul bahanta anu aqaano jamhad waa ku celinaya bahdul bahanta baan anigu aqaana inta la iska celin karana hal iska celiyo nin kasta oo qorigiisa qaadan karana ha qaato oo deegaan kasta oo Puntland jooga oo dhaqan xumada noocaas shalay bay ahayd bal shalay maxaa u geeyay reer dhan baa ugaas samaysanaya reer dhan baa wakiil dooranaya reer dhan buu ugaaskoodii wasiir ka dhigay bal magac xumada uu rabo inuu dadka u soo jiido oo lagu aqbalo ka waran reer dhan buu u kala qoora salaaxaya laba wiil oo walaalo ah oo wasiir baba ka dhigtay maxaa u kala qoora salaaxaysa kan kale reerka disha wata Ibrahim ugaas Yaasiin kii kalena waxa ka dhigtay kay wateen baad wasiir ka dhigtay mid kale doorteen ma is dooran karaan bal wala xubnan ku yeesho waxaan dul istaagayaa bah dhunkasho aniga ma dhahayo bah ma jarteen waa niman tolkaya waa niman ani tamhiil iyo hoole laakiin waxaan leeyahay bah timacad baa dhulbahanta noqday dhulbahantay ogaadeen baa isqaatay waxay noqdeen bah timacad bay noqdeen ra'iisul wasaare Xamse dowladda federaalka raacday oo dhulbahantay warsangali iyo waqooyi bari Soomaaliya ma waxa loo sameeyay in garow laga maamulo waqooyi bari Soomaaliya adiga si aqli xumadaada inaad bah dhunkasho tahay isaaqna deegaanada hartiyeed waa u ogosha xasan shiikho madaxweynihii Soomaaliya ana uma ogolid kuwii tolkaana maamul baad u diidanta isaaqna waxaad leedahay inaad ictiraaf heshid baan kaala shaqeynaya xoog weyn aad u sharmuutata xooggan haddaaba intaa leedahay deegaanada tolka ka maqan ma difaacdo oo iyaga wax u qabato ilaa xalay taas caanood baa gabar lagu kufsaday taas caanood kuwa waxa qoraya waa kuwii wiilka mandhibaanka ku kufsaday magaalada Qardho baa ku leeyihiin ilmaha la kufsaday hartinimada haddaba iyo bahma jeerteennimadu iyo bahtimacadnimadu iyo kablalaxnimadu iyo daaroodnimadu saamulaaxa uga jaxjaxaan kulligiin idinkaga jaxjaxayaan in aniga ahayn ay u shaqeynaysan ma jirto hadday caawa sanaag xabad ka bilaabato waqooyi bari Soomaaliya yaka xad ka leenaa warsangali waxaan ku tagi karaa saacad waxaan dhamayn hadday ka bilaabato meeshaas furintaas u dambaysa salinta hadday ka bilaabatana waxaan ku gaarayaa waxaan saacadii bar dhamayn shalayna ninka deegaankaas iyo dadka tolka la ahay difaaci jiray anu laakiin wixii ma jeerteen hoos u sheegi jiray oo Maxamuud Saleebaan qarsan jiray oo Isaaq hoos iska leefleefi jireen oo hoos iska wici jireen
oo dhulbaantay warsangal loo heshiiyey soo ilaahay maanta banaanka ma keenin alxamdulilaahi rabbil caalamiin ilaahay maanta dhulbaanta iyo warsangali tusay munaafaqadan baa horta mahad iskale kuwa warsangaliga ah oo niikinaya oo le waxaan nahay bah ma jeerteen baan nahay bah ma jeerteen ma tiidin kuwaan ma jeerteenka ah iyo idinku waxaad tihiin bah dhunkasho waqooyi bari soomaaliya tahay laakiin waa kuu cudurdaaraya maadaama aad tahay mucaarad dowlad aan mucaarad hadda anuu puntland baan nahay mucaaradka puntland baan adiguna waxaad tahay mucaaradka waqooyi bari soomaaliya tahay marka mucaaradnimada ku tixgelinaya yaa warsangali kuwa warsangaliga halkan ugu jiraan sheegaya oo gaajeysan ee dheriga isaaqa dul taagan nin hashi laga qaaday oo lagu hormaalaya oo haddana dhunkasho iyo neeka ku daray waxaan ku arkay cimrigay Soomaali 3 sano waxaan la seexan lahaa kursi laga qaaday ka war haddii degmo dhan iyo gabdho iyo wiilal laga qaadi lahaa waa waala lahaaba anoo qaawan baan hor istaagay ninna niiku ku daray inta gabdho iyo wiilal iyo ceergaabo degmo la laga qaaday wuxuu qiil ka dhiganaya adaa baraayada bilaabay adaa ceergaabo xabad ku riday oo adiga toban baad shalay iska dilaysay soddon baad iska dilaysay iska xoog weyneede hadduu walaalka xabada bilaabay ma difaac la gasho oo ceergaabo amarka ka shaqeeyo dhulbaantaa ceergaabo u diiday taqaanay kan isaaqa damiirad ugu diido maad yeelato muxuu yiri war adigu ka doqontaa inta dirayso ma adigu waa duush haddii adigu xiniyo leedahay ila dhulbaanta u diiday soo kan gool cad intuu dan iyo qeyrka ay kugu xirxiray oo sultaankaaga la qaaday oo la geeyay meesha Dubai la geeyay oo ii sheeg ilaa Rabbaan amberka klibi laga soo duubay oo kadib uu saxaabisa saaran tahay oo caaqilkaaga la dilay midna ceergaabo ka qaaday waa isaaq midna ma jeerteen weeye wuxuu ka dilay caaqilkaaga ni labadiiba niikaad ugu dartay marka mucaaradka waqooyi bari Soomaaliya warsangali kuwa ah waxay qabaan xanuun la dhaho Stockholm syndrome marka disho oo wasto oo garaacdo buu ku jeclaanaya inta ka horeysa walaalow kaali sharaf isku yeel dhulkaaga difaaco ka karimays qodobkaas halkaas ka gudbaya mucaaradka waqooyi bari Soomaaliya waxba dhaxgali maayo laakiin yaan ilinta yaxaaska la isku imaan qof kasta gudihiisa xaqiiqda iyo runta ha u sheego reality-ga qofka inuu soo ku nool yahay baa la rabaa anu ma jeerteen baan ahay weligii isaaq marna idinka idinku diri jiray marna Cadda Muuse bilaabay oo iibsaday Laascaanow Abdullaahi Yusuf baa hubkii dhan ka qaatay isagoo codad ka raba ma aysan fahmin dhulbaanta Cadda Muuse Laascaanow bixiyay ma aysan fahmin faroola u diiday meedadkooda dhaawacooda ma aysan fahmin Abdullaahi maxaa algaas baa tilo keeta sameeyay oo yiri awada hadal Umar Axmuudi awada hadal iyo SSC ma aysan fahmin hadday fahmeen markii banaanka lala soo istaagay wixii hoos loo sheegi jiray soo ilaahay maadiis waqooyi bari Soomaaliya wax Puntland idinka yaala ma jiro wax idinka yaala meesha la dhaho Hargeysa ma jirto masiirkaagu Muqdisho yaala Muqdisho mulaax waa u socdaa lagaaga dheereen umada Soomaaliyeed waxaan dul istaagayaa Daacish intaan u imaan kuwa barqamaalka ah oo dhulbaanta ah oo suuqa laga qortay abkay alkulisto dhan iyo xashiishi cabo dhan ma kalibiyo ka haya ragii meesha fari waxa meel arka kacay ator fariisay madaxweyne ku xigeenka fiir ka fariiso waa habaa mansuura way dana adu dhafarso wariya ma diidayo kuwa xildhibaanada ah isagu wuxuu iska dhigdhigaya Axmed Karaash meel arka kacay ator fariisay Axmed Karaash nin la dhaho oo dhulbaanta hubka adduunka u sameeyay oo sanad kasta baawur jiray oo hub aruursanayay oo mishaarkiisa hub ku bedelan jiray baashalay madaxweyne ku xigeen ahaa oo daniyo ku maqan meesha la dhaho xamar xataa waraaqa ka soo daba saarayay si waxa uu rabo uga meel marsado maanta waxa jooga mid korontada laga jarto biyaha laga jarto suu koronto iyo biyo u helana week bisha markay dhamaadkeeda taa ama waa inuu carwo ma jeerteen leeyihiin uu ka jaraa xariga ama maqaaxi ma jeerteen leeyihiin waa inuu xariga ka jaraa Maxamuud Saleebaan leeyihiin ama waa inuu tolkii caaya si kale oo mishaarka lagu fasaxay ma jirto waa inuu tolkii ku dhiiqaysta kuwa xildhibaanada ah oo baarlamaanka ku jira ee u jeeda anoo Yacquub Siyaad ah oo nin reer Puntland waxaan ka gamila ahay oo odayaasha dhaqanka u wacayo oo dhalinyarada aan u wacayo oo aan leeyahay barxadii hala dhaqo aan leeyahay hadda idinku xildhibaanow alleedii firdhi anaga ka saxsan oo meeshaani waaba Puntland baa leedihiin Laascaanow waaba Puntland baa leedihiin saa ku tugsataan sidee u ogolaatay ninkii kunka ninka dilay inuu mulaax garow keena calankiisa ninkii argagixisada ahaa oo kun wiil oo dhulbaanta ah sariir saaray ilaa warsangali sariir ma saarne